asalaamu calaykum soo dhawaada janalkiina iyo video cusub. maanta waxaan dhex dabaalaneynaa 5 xaaladood oo crucial ah oo aan sina looga maarmeynin cid kuu sheegaysana aysan jirin marka ay imaato bodybuildingka ama dhisidda jirkaaga. waxaan isku dayi doonaa in aan mid u dul istaagno. fadlan koobkaaga qaxwada ah soo qaado, warqadaadana soo diyaarso. kaliya nagu caawi inaad videoga like saarto, waana wadada kaliya aad janalka ku caawin karto si uu meel fog u gaaro. haddii aad nagu cusub tahayna subscribe thanks. qodobka koowaad waa ogahay already waad qiyaasaysaan nutritionka. waxaad ogaataan qof walba wuxuu u ekaadaa wax uu cuno. nin walbo inta uu cuno ayuu ciidamiyaa ayay jiraan Soomaalidu. guys, ninka agtaada taagan ee aad u aragto in uu ka jir qurxoon yahay, biaamin uu ka cunto wanaagsan yahay. daraasaad ay samaysay American Journal of Clinical Nutrition waxay sheegaysaa in jirkeena u baahan yahay more protein si uu u xakameeyo murqihiisa. Proteinka cuntada wanaagsan ayuu ka yimaadaa. focus garay mar walba proteinka liinka ah, dabiicigana ah. sidoo kale cuntooyinka whole greenka la isku dhaho, khudaarta ay kow ka tahay ka tagin. sidoo kalena faadka caafimaadka leh. tusaale yaro kooban haddii aan ku siiyo, haddii aad 60 kiilo tahay, ku dhufo 2.2 waxaad qaadanaysaa 132 gram oo protein ah maalinkii. waana sida ugu wanaagsan marka laga hadlayo muscle hypertrophy-ga. sidoo kale carbohydrate ugu filan cuntadaada yana laga waynin si energy fiican aad u hesho, jirkaagana u kayd garaysto glycogen ku filan. qodobka labaad, ma maqasho wax la dhaho progressive overload. joogteynta ama kor u qaadista culayska aad ku exercise garayso waa furaha ugu muhiimsan. progressive overloadka 3 qaab ayaad u samayn kartaa. in aad setskaaga aad kor u qaado. setka dabcan ku celcelinta exercise-ka inta goor aad ku celcelinaysid inaad kor u qaado. halka dhalinyarada Soomaalidu u badan yihiin 4 mar aad samaysidna in aad 5 ilaa 6 mar aad ka samayso. sidoo kale progressive overloadka waxaa lagu fasiri karaa repskaaga. dabcan waxaan naqaanaa anaga inaan 6 ama 8 ama 10 reps samayno. inaad repskaaga kor u qaado, intensitygaagana aad kor u geyso, ayaduna waa la dhihi karaa progressive overloadka ayay soo hoosgalaysaa. sidoo kale qaabka ugu wanaagsan inta badan ay khuburadana wada taageeraan waa qaabka ah in aad isbuuc walbo isku daydo culayska aad qaadaysid ama miisaanka aad ku exercise gareynaysid inaad kor u qaado. taasaana ugu wanaagsan haddii ay noqon lahayd in cadaadis muruqaaga uu helo ama jirkaaga si dhaqso ah uu ku dhismo. hal daraasaad haddii aan ka soo qaadano ama hal cilmi baaris, waxaa jirto daraasaad ay samaysay The Journal of Strength and Conditioning in jimicsiga culayska la kordhiyaa ay qayb weyn ka qaadato cadaadis dabcan ku dhacaya murqahaaga taa oo u hogaaminaysa muruqa in uu si sahlan ku koro. qodobka saddexaadna waxaa inoogu jira recovery-ga, nasashada. dabcan sida aad ugu dadaasho inaad jiimka aadan maalin u goynin, aad maalin walban u dhex taagan tahay, ayay u wanaagsan tahay inaad recovery-gaaga aad ugu dadaasho. halkan akhyaarta aad bay ugu wareersan yihiin. ma hurdada kaliya recovery ah? maya, cuntada iyo proteinkaas aan ka soo hadalnay murqahaaga recovery ayuu ka qaataa. midda kale, murqahaaga time ayay u baahan yihiin si ay u soo kabsadaan. khuburadana waxay isku raaceen haddii hurdo kugu filan, biyo fiican aad cabto iyo jirkaaga oo gebi ahaan nasta, in murqahaaga u sahlan tahay in ay si dhaqsi ah ku kobcaan. hurdada waxaa lagu taliyaa 7 ilaa 8 saacadood haddii aysan marxaladda u diideynin. qodobka afaraadna ahmiyadda compound exercise-ka uu leeyahay. dabcan waxaan aad iskugu qaladnaa full body training-ka iyo compound exercise-ka. ogow, full body training-ku waa in jirkaaga maalin walba murqihiisa aadan mid ka tegin, dhammaantoodna aad wax ka taabataa. compound exercise-ka dhanka kale waa exercise-yo cayiman oo loogu talagalay in hal muruq iyo ka badan targetka aad saartid, sida squat-ka, deadlift-ga iyo bench press-ka. guys, compound exercise-yada waa game changer. maalin yaanan routine-ka laga weynin haddii aad rabto inaad ciyow korto. research ay samaysay European Journal of Applied Physiology ayaa lagu cadeeyey in compound exercise-kan hadda ka hadleyno sida squat-ka, deadlift-ga iyo bench press-ka in ay jawaab waadix ah ka keenayaan hormoonaadkaaga, oo ayagu hormoonaadku yihiin waxa qayb weyn ka qaata isbedelka jirkaaga ku dhacaya, tusaale ahaan testosterone-ka. haddii aad danaynayso marka in aan si gooni ah uga hadalno compound exercise-ka, commentiga igu reeb. videogana dabcan meel dheer gaarsiiya si ay algorithm-ka uu arko, walaalaha kalena ee u gaarto. waan kaga mahadcelinaya. qodobka shanaad waa qodobka aan ugu jecelahay aniga ku sabri ahaan, consistency-ga iyo patience-ga. dulqaadka iyo sabarka oo iswata, shay aadan ku celcelin weligaa in aad istaajiso kugu adagta. waa laga yaabaa maalinka ugu horeeyo in aad dareento wax badan in aad dadka
ka dambayso maalinka labaad sidoo kale maalinka soddonaadna sidoo kale laakiin 100 beri oo aad ku celcelisaa hal shay wallahi qof kale ayaa meeshaas ka soo muuqanaya ana la aqoon dad badan marka la ay nambarkaaga dib u qoranayaan dulqaadka ayaan ku soo gabagabeynayaa ogow jirkaaga waa cajiib wax walbana wuu awoodaa qaasatan marka lagu carbiyo adiga ha noqonin kii ka faa'iideysan waaya oo walaalka ku sabriya fadlan janaalka soo bir like tanoo saar assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu